بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa cali xirsi oo ku magac dheer cali kabayare waxaan rabaa inaan xoogaa ka hadlo arrin maalmahan buuq ka socday social mediaha iyo idaacadaha oo ay wadeen beesha hawiye oo u muuqata mid yacni aan garanaynin nidaamka iyo systemka dowladnimo ee loo socdo iyo meesha loo socdo iyo waxa la doonayo iyo qorshaha ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud hogaaminayo ay leedahay iyo mustaqbalka iyo hiigsiga dowladdu ay doonayso ayagoon la socon warar loo soo dhiibay la rabo in dowladda lagu qalqalgeliyo madaxda qaranka loogaga jeediyo loogaga mashquuliyo la dagaalanka khawaarijta iyo argagixisada dalka ee kusoo duushay ummadda Soomaaliyeed horumarka iyo barwaaqada u diiday na dhigtay maanta inaan maaragtay muddo 15 sano 16 sano aan halkii aan horumar iyo dal dhis iyo dib u soo kabasho iyo maxaa la yiraahdaa isku keen iyo midnimo aan ka shaqayn lahayn ayaga dagaalkooda iyo dilkooda iyo qaraxooda lagu mashquulsanaa iyo sidii loo maareyn lahaa marka maadaama maanta loo soo jeestay oo dowladdu ay si maaragtay hagar la'aan ugu soo jeesatay la dagaalanka khawaarijta ayaa dad khawaarijta u shaqaynaya iyo kooxo qoladii hore ee maxaa Cabdullaahi Farmaajo hogaaminaya nabadii nolol ugxamo ay meesha dhigatay ayaa waxay bilaabeen buuq iyo qaylo iyo inay dadkii shacabka ahaa ee walaalaha ahaa ee magaalada Muqdisho ku noolaa ay tashwiish iyo buuq ku furaan oo ay iska hor keenaan oo ay ka dhaadhiciyaan maaragtay sheeg in dowladda Xasan Sheekh ay qolo gooniyo u xiran tahay oo qolo gooniyo haysato marka waxaan arkay odayaal hadlayo dhahaya waxaan ku hadlaynaa magaca habar gidir iyo dad qaylinaya social media oo dhahaya mudulood magacoodan ku hadlaynaa iyo dad iscaynaya horta waxaan leeyahay kala barta shakhsi dowlad u shaqeeya iyo qabiil kala barta nin kasta oo dowladda u shaqeeya xataa hadduu madaxweyne yahay ilaa kan ugu hooseeya ma jiro nin qabiil u shaqeeya ma jiro nin walba dantiisa u shaqaystaa ilmihiisa korsadaa mushaarkiisa qaataa dadkan oranaya maalin walba beeshayada dowladda matalaad kuma haysato oo haddii hadda beeshiina xataa ay matalaadda ugu weyn ku haysato maxay kuu qabanaysaa adiga maxay danaho kuu qabanaysaa ma mushaar bay ku siinaysaa ma lacag bay ku siinaysaa ma waxbarashay ku siinaysaa maxay ku siinaysaa waxba kuma siinayso ninkii haddii uu xildhibaan noqdana asagaa shaqaysanaya hadduu wasiir noqdana asagaa shaqaysanaya hadduu agaasimo noqdana asagaa shaqaysanaya asaga iyo afar hoos nool ayaa ku noolaanaysa midda kale waxaan la yaabay qolyaha inta shir iska qabtaan ama shakhsiyaad ayaa waxay leeyihiin annagoo ku hadlayna magaca beesha reer hebel war beesha reer hebel miyaa adiga soo dirsatay goorma adiga ay ku siisay codka iyo maxaa la yiraahdaa ishag go aheadka ina ayaga matashid ma jirto waa nin shakhsi oo asagu wax doonaya ama qolyo kale u shaqeeya oo laga dhex hadlayo wey marka ololaha la kiciyey maalmihii hore ahaa murusadii habar gidir haddana isku bedelay habar gidir iyo mudulood waxaan idin leeyahay waxaas dan idinkuma jirto meeshaana mudulood iyo habar gidir isdagaalsan ma jiraan mudulood iyo murusado isdagaalsan ma jiraan murusadii maxaa la yiraahdaa habar gidir isdagaalsan ma jiraan koox danaysata oo qowleysata oo labada dhinac u kala shaqeeya ayaa dadka hadda dhinac u rogaya dadka Soomaaliyeed ama dadka Muqdisho ku nool ama beelaha hawiye waa inay ilbaxaan oo macnaha dowladnimada fahmaan oo nabadda fahmaan oo wada noolaanshaha fahmaan oo inaysan nin walba yimaado isku taagin si maxaa la yiraahdaa dowladnimo u dhalan oo aan horumar loo gaarin marka waxaan leeyahay dadow istijiya waxaana waa wax laga soo shaqeeyay dowladda Xasan Sheekh waa dowlad wanaagsan bini aadan baa hogaamiye qalad way geli kartaa laakiin qorshahan hadda nooc loo gudinayo waa wax laga dambeeyo oo ay ka dambeeyaan kooxdii fashilantay
iyo maxaa la yidhahda uxamihii ay meesha uga tageen ayna doonayaan inay ka mashquuliyaan horumarka iyo wanaagga socda iyo la dagaalanka argagixisada iyo oo maxaa la yidhahda isha shacabka kacay dowladdii iyo shacabkii iyo ciidamadii oo isfahmay oo isla falgalahaya oo isla duulahaya oo isla dagaalamaya oo isku meel ku dhimanaya oo wada ceyrsanaya al-shabaabkii markii la arkay ayaa wixii al-shabaab la shaqaysanayay wixii shisheeye u shaqaynayay sirdoon shisheeye ahaa oo dowladaha dariska iyo qatar iyo u shaqaynayay wixii maxaa la yidhahdaa cayayaankii baraha bulshada xamihii uu farmaajo ka tegey wixii dhan ba hal mar isqabso isla qaydiyey waxaan idiin sheegayaa bargiir iyo abgaal wax ka dhexeeya ma jiraan waa isku weel waa isku dan murusadii habargiir wax ka dhexeeya ma jiraan waa isku weel waa isku dan waa isku degaan aan u wada jeesano inaan al-shabaab iska xoreyno dalkayaga aan iska xoreyno cadowga ka xoreysano aan iska dhicino nimanka khawaarijta ee ummaddeedii duleystay ee shacabkayga duleystay waxbarasho u diiday ee caafimaad u diiday ee nolol u diiday marka waxaan idin leeyahay joojiya dadka isku jawaabahaya oo ka dhiganaya maxaa la yidhaha qolyo social media ka shaqeeya iyaguna views ka raadinaya iyo dad danaysata oo qowleysata oo siyaasiyiina oo siyaasaddii markii ay waxay dowladda la jaan qaadi waayeen oo albaab walba oo musuqmaasuq iyo balaayo raadin oo kasoo xirmay rabo inay dowladda mucaarad ku furaan oo ay dhib iyo iska horkeen ay u bilaabaan marka aqligu ha shaqeeyo hawiyow dalkiina xoreysta dowladnimada taageera amniga taageera nabadda taageera xasan sheekhna taageera nin ka wanaagsan oo aad hadda haysaan oo aad soo saaraysaan ma jiro hana la joojiyo propagandada iyo maxaa la yidhahdaa waxyaalaha aan aqligalkan ee aad ka wadaan social media iyo idaacadaha ka wadaan nin Yurub jooga ama Ameerika jooga wuxuu ku leeyahay danta waxaan u hadlahayaa habargidir ama danta waxaan u hadlahayaa murursade ama danta waxaan u hadlahayaa maxaa la yidhahdaa muduloodii abgaal war maxaa mudulood u haysaa maxaa habargidir u haysaa maxaa danho u haysaa gurigaagii baa joogtaa mobilkaagii ama kaamaradaada hor fadhida danta aad u haysa maxay tahay danta dowladnimo ka weyn inay dowlad dhistaan oo amni helaan oo nabad helaan oo barwaaqo helaan oo cadowga iska xoreeyaan oo ka weyn u haysaa maxay tahay ya waxa u haysaa maxay tahay cadow baa tahay dan maxaa la yidhahdaa habargidirna cadow baa ku tahay mursadana cadow baa ku tahay abgaalna cadow baa ku tahay dowladdana cadow baa ku tahay maxaa la yidhahdaa wax dan aad u haysina male kanase ummadda kana fadhiiso dadkuna waa inay sidaa u fahmaan dadkuna waa inay sidaa u fahmaan oo aysan qoladii qaylisaba iskaga daba qaylin oo aysan maaragtay isha ka daba qaadanin oo qolaba qolo u jawaabin waxyaalaha la iskaga kaftamiyo waxaas iska dhaaf laakiin sidaan u arkay dad waaweyn baa inta soo fadhiistay waxa ku leeyahay anagoo reer hebelka yaa adiga kuu wakiishay goormay ku wakiisheen oo dheen noo hadal ku dheen waxaan idin leeyahay khayr iyo nabad iyo caafimaad ayaan idin rajeynayaa ummadda Soomaaliyeedna aqliga iyo maskaxda ka shaqaysiiso gaar ahaan ummaddan hawiye ha fahmaan waxa looga shaqeynaya ninkii yimaadaba lugaha ku dhaginina ninkii hawiyaha yimaada ninka walaalkiisa ugu soo hormarahay ninka jegada raadinayo war adiga is raadinaysid adiga ayaa is raadinaysa habargidir iyo abgaal maxay kala yihiin mursadii abgaal maxay kala yihiin shiqaali iyo habargidir maxay kala yihiin waxba ma kala ahan Soomaali waxba ma kala ahan danta ummadda Soomaaliyeed ha laga shaqeeyo dowladnimada ha laga shaqeeyo gobolka banaadir isku haysataan qashinka ka caruursada oo balaayada hubka soo gelinaysa ka celiya oo amnigiisa ka wada shaqeeya oo cadowga iska celiya meel la isku qabsan karo sameeya dowladda la shaqeeya dowladnimo wax ka wanaagsan ma jirto dowlad la'aan waa soo aragnay 30 sano waxa aan ku noqonay markii aan soo noqon lahayn oo dalkayga waxaan u horumarsan la'anahay oo aan barwaaqada ku jirto uga soo saaran la'anahay oo beerihiisa u faran la'anahay oo xoolihiisa u dhaqan la'anahay oo badayada uga kalluumaysan la'anahay waa oday xun oo inta soo fadhiisa meel yidhaahda anoo reer hebela haddaan saas leeyahay sidaas lama yeelayo horta oday waa in laga dhex bixiyaa shacabka iyo dowladda dhexdeeda waa in laga saaraa isma qabanayso in odayna taliyo dowladna taliso isma qabanayso oday waqtigiisii waa dhammaaday dowladda xasan sheekh waxaan u sheegayaa oday waqtigii la xushmeyn jiray ama la tashan jiray waa dhammaaday sababta ku dhammaaday waxay tahay oday maanta inta Amerika inta yiraahdo soo baxa reer hebelow dagaalama ama nabad qaata oo laga yeelay horta ma jiro
oday ciidan haystana ma jiro oday dhaqaale haystana ma jirto waagii hore sheekadii ahaan jirtay hebelow soo baxay waa waray oo loo soo istaagi jiray ma jirto shacabka iyo dowladda dambiilaha iyo sharciga in cidi u dhaxaysa lama rabo oday baana u dhaxeeya adduunna oday baa qarribay odagaas ha laga saaro meesha odagaas wasaaradda arrimaha gudaha ka shaqayso oday wax la yidhaha inaan lala hadlin meeshaan baadiye lama joogo geed hoosi lama fadhiyo dowlad iyo siyaasad iyo horumar iyo technology baa laga shaqaynaya muxuu oday haddii ilaahay kuu royaa isha koofi xun uu ka garanaya waxuu ka garanaya anagoo reer hebena wallaahi haddaa saas la yeelin gow iyo gashmala unbuu yaqaanaa anagoo reer hebena lama soconayso meeshaan dowlad iyo nidaam la rabaa odayaasha waa in meesha laga saaraa shirarka qabanaya koofiyaha dhaadheer dhahaya anagoo reer hebela waxaan ka codsanaynaa dowladda hebelow saasaan ka codsanaynaa adeer nama matashid anaga dowladda federaalka na matasha ayadaa naga mas-uula ayadaan ku daba faylaynaa ayadaan la shaqaysanaynaa ayadaan horumar iyo maxaa la yidhahdaa ishag iyo barwaaqo inay dalkan gaarsiiso laga sugaaya ayadaan rabnaa inaa shabaab inaga celiso oo maxaa la yidhahdaa ishag ay dalka noo xoreyso xasan sheikh ayaan la shaqaynaynaa ha lala shaqeeyo madaxweynaha ra-iisul wasaare xamsa ha lala shaqeeyo taliyaasha ciidamada ha lala shaqeeyo dowladdu waa wareegto nimo maalin buu imaanaya nin xafiiska askale ma jiro xasan sheikh shalo madaxweyne ah waa laga qaaday farmaajo noqday farmaajo shalo waa ka tegay xasan sheikh hadda berrina qof kala imaanaya marka dowladnimaana deeqdee qabiil nama deeqo qabiil haddaan wax ku samaynayno ilaa waagii ilaahay subxaana watacaala soomaaliya nagu abuuraa qabiil isku hortaagneed wax horumarana kumaana gaarin bulshooyinkii nala midka ahaa ee nala deganaa ee aan gobolka isla deganayn ee qowmiyadaha kala duwan ahaa ee aan isku afka ahayn ee aan isku dhaqanka ahayn ee aan isku diinta ahayn ee xataa qaarkood aan isku midabka ahayn baa wada nool oo horumar gaaraya oo dowladnimo haysta oo barwaaqo haysta annagii halka qoys ahayna saasaan iskugu dheganaa majaha iskugu dhegana war qabyaaladu waa basashada midda mar sidii loo qaadayo u socoto way dhammaanaysaa maanta mudulood iyo abgaal haddaad taagan tahay berri waa sii kala baxaysaa harti abgaal iyo wacaysle iyo waa usii kala baxaysaa haddaa habargidib maanta taagan tahay berri waxaa noqonaysaa maxaa la yidhahdaa cayr iyo salamaal iyo sacad iyo hebelow iyo ayaa noqonaysaa waxa weye meeshaadaas koraha kasoo degi halkaagaas kore taagnow dowladnimadaas iyo qarankaas taagnow qaran iyo dowladnimada soomaaliya deeqda hawiyana qaran iyo dowladnimada deeqda sidaas aan ku wada shaqayno waa anigoo cali xirso insalaamhaye bejkaana iskala soconaynaa fadlan share ii dheh commentiskanan kasoo bixi wixii fikirkaaga si wanaagsan uga soo dhiibo followna soo dheh meeshii kale ee profileka waana deeq weyse dadkii baa soo batay marka xaggaana usoo wareegnay waa in salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu